dowladdii rayidkii 1960 ilaa 69 professor cabdi ismaaciil samatar wuxuu kala qaybinayaa political elite-ka Soomaalida labo wuxuu leeyahay qaar waxay ahaayeen civic program bay wateen oo waxay rabeen national interest ama danta guud inay ka shaqeeyaan aadan cadda hogaaminay qaar kalena waxay ahaayeen buu leeyahay sectarian ama kooxo gaara oo dana gaara wata mainly-na isku haya dana qabiil marka halkan su'aashii waxa imanaysa culture-keena iyo dawladnimadan halkay iska soo galayaan baa markaa imanaysa dhaqankan siyaasiga iyo dhaqankan dawladnimadeena dhaqankeennii caadigii iyo kii siyaasiga halkay iska imanayaan marka ingiriisku dawladda dusha nagaga keenay ama talyaanigu Soomaaliya dusha kaga keenay waxaa dhacay markaa iskhilaaf dhaqankeennii aanu haysaneen inagu caadigu dhaqmaynay iyo kii shuruucdii baa isqaban waayay marka dawladihii waqtigaa jiray dawladdii militariga iyo tii kale waxay qaateen dhaqanka siyaasiga ee modernka ama casriga therefore waxay yidhahdeen socialist weeyaan waddanku ama waa democratic dhaqankeenniina meeshii baa laga saaray waxay qaateen markaa aragtida modernity-ga ama modernization in laga tago wax alla wixii dhaqanka ahaa dunidu casri noqoto waana meesha state failure-ku uu ka imanayo labadaa dhaqan ay isqaadan waaye marka waxaa bilaabmaya markaa corruption waxa bilaabmaya political patronage wax la yiraahdo ama hantidii ummadda inuu qof ololo ku galo inuu awoodi ku tagrifalo marka 1991 saasay dawladdu ku duntay Soomaaliya marka waxa bilaabmay marka political elites kale hogaamiye kooxeeda bilaabmay innagana marka waxa dhinacan aanu soo noqonay traditionalki oo golaha guurtida yimiday golaha guurtidu marka waxay noqdeen force sidaas marka state building iyo amniga dalka lagu sugay labadii ku waxaan soo gudbaynaa marka political elites ku salaysan xisbiyo si aan uga gudubno dhibaatooyinkii xisbiyadiina maanta waxay iska noqdeen marka politicized climate yani xisbi walba reerba ku jira ama sheeganaya therefore halka marka la joogo waxaan arkaynay doorashooyinkii waagi dhaweyto ree hebel baa laba xildhibaan wareejinayay sidii maaragtay ariga waxa la oranayay xisbi hebel baan labadan ku wareejinay يعني ميلا iska soo galeen waa dhaqanka political culture-ka maanta jira dhinac kale marka laga yimaadana waxa jira siyaasiyiin kooxaysan ama maaragtay dhinac maaragtay aragtida diimeeda ka kooxaysnaadaan ama arrimadano maalinba xisbi bay joogaan marka political culture-ka waddanka ka jira waa ka Kenya maaragtay traditionalkiina waa lagu dhaqmayaa oo xisbiyadii waxa keenaya caaqil baa keenay musharrixi haddana waa la diidan yahay oo maaragtay xisbiyadii waa kuwan la mabaadii baan leenahay halkan baan leenahay marka waa contradiction marka dawladnimo iyo dhaqankeena iyo dhaqanka political culture-ku sidaas ayay u qaabaysan yihiin